inta furitaanka inaad inoo koobtaan inoona ururisaan insha allahu haddaad madaxweynaha u baahantihiin aanu xilli kale u yeedhanno wixii su-aala weydiinaya waana mahadsantihiin aad iyo aad baan u mahadsantahay guddoomiye guddoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan marti sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah ee xukuumadda hogaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay muddaxileedkaaga waxaa 9kaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray sow in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay mudanayaal waxa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinnii su-aalaha aad weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa bliis insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa labada su-aalood baan u dayn doonaa insha allah mudanayaal iska bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajandaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajandaha inuu ku socdo weeye laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa 1 2 waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo yubba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isoo taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farku tirisa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay guddoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa hadal mariyad mudane hadalka mariyad baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona
dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiista hooya la fadhiisto hala fadhiisto fadhiista